حسن شيخي حمزة كم سوري قيبت الكواد يجا عسكري جارسيا قيبت اللباد واحد عضي وزيرك ورفافنت بنت الآن وزيرك ورفافنت إسسي خاتمه وهذا اللي جوابت السومريين كذا شيء على الشعب يدنا قلب كاسيقو تدري عند خلط كاسكرة يصابتها لا وزير حتى إسكربان بكون درستاي قلب كيس تعال مقعد عي ميد باح كتير على بيت هون مالين إيه بتران دولة كتير بكوشة واحد دولة وبتران عاو كتير ما كتير نوال بقولي قاعد قاضو نفتح الدفاع لبي طول ما نبي عيد واحد كجرة تلاقي دميت بقى كجرة سببته وجرة وكود الاستاجية وهي قلب كي يقول يا رئيس وزراء حمزة حسن الشيخ محمود وحلا يا رئيس وزراء مدحوينه مدحدي دلكاتين ما عربور كاس ما بوساس الله ده ذكر ريال بوساسو يدك الصوماليات بقول شرب ودي ورما بين بقى شيء بقول شرور عربور كاس السودان لقد قيمين شيء وكاس أورك ما أنتم بناك هو بحي ميرو بالدنيا دافيد أنا وياه له مدحوينه إذا هو الصومالي معموله ninkaas waxa ma maamulo shacabka reer Boosaaso aniteen bixitiinta duqeyn karaan Suudaan oo walaalahayna xogtan way haysaa sababan dambiga uga galeynana ma jirto dagaalkan xataa anagu reer Puntland ah kuma qabna faa'iido saldhiga u weyn oo wax laga duqay oo wax laga weeraro magaalada Boosaaso droniska ka kaca madaxweyne ma aaminaysa ciidan Soomaaliyeed oo 5,000 oo wiil ah baa ka dagaalamaya Darfur Suudaan ka dagaalamaya oo BNPF oo aniga tolkay ah وعلى شقيستيال الإمارات القرآن حقت أصلا ما هيسان وركاس مركو بريب بناك وأسبح ويانا بيلا وأنا هلا يقبص وجرا شنكون أولو BNPF باكد على من السودان حتى أنا كل شيء ملح وين رئيس وزراء وحنا بوساسة خرك وصارت إن ما كحوتين تا إن دقيا وين العيسى أنا والله وبالله قلت لك إن ما بوساسة لوان إن دقينا يا يمنيين حدي عيسى العين حقال معي nin odayo dadkan ay deegaanka dhex jecel kale ma ahi nin raba inuu mulaaxo kursiga ka bedelo oo umada reer Puntland u dhaamana ma ahi waa ballan ilaahay ina dhacdaan ku tusay yaman oo duqeynaysa marka waxa tiraa marka hadana Yaaqub baa ka dambeeyay oo soo adeegsaday oo yamaniinta yiri duqeey waa arki doontaan aeroboorku soo degan yahay waxa la degan ninkii dhamaa ee Suudaan soo khreebay baa la degan geelchiri bin Xamayti iyo dana bin Xamayti aeroboorka degan yahay saldhiga ana indhahay ku soo arkay nadartu iri 4 kilomitir بوهوس وقضية مجال بوساس إيربور كده نكوياله وأنا دول إسكوين هذي أو إمارات بوساس وهبين كده تكو شعب كبس إحنا عندي أرضاس ما وين يريز وزاري أنا أرنت وحكي قبطان أو نيكا دعوة عالمية كفرتان أو ديار لهان عد وده هو اللي نيكا معموله كوا الريد كماهي كوا هبين كي دولة يمنع وين أنا هبين كي ممنوعان وأشوف سنة هو اللي نيكا معموله وعارك كرتان رعالك حمر يا الله أما الرجال كبوساسية له كان ملحتوية كان صومالي ودنا يا مامرو وأركي الديار أنا بين بركي ما بكا إن دريق عن لو دارت مريا وبوساسي كدولة وبوساسي كدقية وأركي سام من حوين أرنت وحكي قبته والله آخر إلى هيدي كده ويدينيا نكان عد دورة تمانية ده كان هو بابا نكان حل معنا قاعد تسكت سقرت نكان عد دورة تيم مجرته يعيدوا مسؤول كياهي مجرته نكان ده كان مسؤول كاه reer Boosaaso afkooda ay kula hadlaya ra'iis wasaare madaxweyne dadka waxa loo qabto dadka khatar ba ku soo wajahan sideedaba falku waa maxay waa ka hortag iyo ka daba tag weey ka daba tag waxba kama qaban karno Soomaaliya bila dawlad baana laakiin madaxweyne ka hortag la isku day war fariinta ilaahay ma u sheeg war Soomaaliya ma u sheeg war ma ugu celiye war ra'iis wasaare Xamzo iyo Xasanow wala arinta wax ka qabta ay qodobka aan dul istaagaya horta intaan gabdhaha saacay iyo ma jarteen dul baanta aan dul istaagin wasiirka warfaafinta Puntland waa ninkan Hindiga waa garanaysaa ninkan dabca waa nin dul baanta oo jaac siyaada weey dul baanta nugaal degan ma aha isagu waa jaac siyaada weey isagu waa nimanka SSC khaatuma iyaga iyo baar samay xaggaas jiraan waa dul baanta caadiga SSC khaatuma haysto xagga jira weey ninkan marka dani waftada bisaas ka soo mariya firdhiyo maagay oo leeyahay maag hadii kale mishaarka iyo qeylaada laga goosanay ninkan teeda kale firdhiyo wuxuu u balan qaaday dani wuxuu u balan qaaday Allah waxa maqli jiray sheekh oo faan weyna wuxuu u balan qaaday inuu siinayo xildhibaan inuu siinayo mana siin karo xildhibaanada marka dhulbaanta firdhiya qoraya ayuu soo jawaabay ninkii kale SSC khaatuma soo jawaabay dadka inuu jawaabo xaq way tahay markii madaxweynaha la caayo dawaa jawaabaysa marka ninkan sababta hadda wuxuu leeyahay inaad saxiixday Jubbaland ma ahayn Jubbaland adiga mooyada baalay hindi u dhalay Jubbaland maxaa ka qusaya kuwin ma noogta Jubbaland joogta Axmedoobe mana noogo mana dhargo
jubbaland waa tii daniga u shaqaysay axmedow waa kii khiyaamay wey jubbaland cusub waa la dhisayaa walaal oo mareexaan madaxweyne ka yahay firdhiyaa saxiixay futadaada in la gado xataa firdhiya saxiixaya iska dhaaf shidaalka ceelka olol waa saxiixaya dani haddii la dhoo qabta wasa waa saxiixaya firdhiya wax walbuu saxiixaya orod niyo maskiyo tacbaanka ama reerkaaga raac ama reerka afxumada kalaha ninka ka SSC khaatuman waa saxay anu ku soo jawaabo ilay birtad kugu dhufto qof iyo baahan hadda xillu baanta firdhiya adeerkaaga ku ay ma firdhiya adeerka aad maxaa dani ka qabanaysa nin dul baanta sobati nin jacsiyaada sobati firdhiya jacsiyaada ma ka jacsiyaada aad maxaa lifka hambada maxamuud Saleemaan ay ku fadhiisay ma jarteen oo iyaga meesha qaadinba war qof iyo caaq u dhalay or xishoodniyo oo sida Suudaan wax walba ku hadlay ثم والله ديك الصومال قروا وجهته والله الكاس اللي قاردي هذا مرضى في الرياح كشكته شعبك عاصمة ما مقلسان أوجد لسه خاتم إنك أوصلت حدي حدي محيطة ماشى كو عرقتان أمر أنا إنسان هندي قدراي سكر هي لنا أفكار كعادية سجى أبيس وحن إن أفكار تبيوي عاصمة دي لما يقروا كعاية في الرياح كعاية شعبك عاصمة شغالين واضح يعني دليل بالك هو اللي يسمرنا والله يا واضح إنك أفكر كجراح سكنا فادو أنا كتشوابي ويعقوب سيادة وياو كبر أفكار يسال يكر لي إسلام قلب كيانو كفاية سري لا يحل برا برشيد حكواركي قبلها بريانا يوم تشرتنا أولي عمر حمودة يوحى أركي قبله ربانتا يسعى أركي طبعا كل بدي أنا وضي هرتيد ما دام أنا هاي أما وضي دارو أما وضي سوماليد لكن لو نقل لي برا دينته يضمرك وحنا يورت قبلها ولا عليا قبلها شاع السياد يا قبلها عمر حمود ولو يكون عمر حمود قارب حل باناه وحنا يورت دجالك ولا لا كلا قبوش قبلها استقالية حد نيك أفرين تودر لا ملاحنا ده سي أشرف بعد الحيس هذه كم باك سماء ورق بحبت بوساسو تين ويدستين حاجة سلوى كليو كتيران ما كان مدحوين فيس واش ميور ربع مساحة ميور ربع ملا نقيا مساحة نقيا ما كان كل ما يلا عيشتي سليد أويل لما يشوي واتالي أو نيك الحيس بكون مقياي قبلها كلا لله طبعا سبتها مدحوينه كنت مدحويني يا أشرف بقى اسمه لانصرية اوكي تاس markay waxa ku cadeynaysa ninkii gabdhaha kale celin lahaa isagii labtarkiisi baa wax kale ku maqan ku mashquulsan marka ilaahay waxa la yahay dadka reebutaha ka soo gaar way waxa dul istaagaya ayl maalo wiil baa lagu dilay wiilka markii ayl lagu dilayay qol is qabteen qaad walayaal dhalinyaradan ayl joogta iyo kuwa qaad walayaal is qabtay ciidan looma dirin arintan dhexdhexaadiya dad arintan dhex gala oo gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa meeshii looma dirin waxa loo diray Cabdirabbi Amar bixiyay oo Ismaan Axmed Bahar dhulbaanta wuxuu yiri ciyaalkaas madaxa ka soo gooyay ciyaalkaas Ismaan Axmed ka madaxa ka soo gooyay aduu meesha dagaal ba ku dhaxmaray nin baa meesha ku dhintay dhowrna ku dhaawacantay ninkii dhintay 12 maalin buu talaagada ku jira marka aniga Cabdirabbi iyo waxa qashinkaasi Ismaan Axmed la hadlimay tolkay baan la hadlay tolkay hadda koor ma xasuusta ciidanka xasilinta oo magaalada Garowe ku dilay nin reer Sharaf ah 12 maalin habeenka uu marayay habeenka 13 baa fariin soo diray habeen kadib kala bayr baa ninkii lala caasiraa ku disheen Soomaaliya ninkaas waxaan rabaa ilaa bari ilaa saada masida u dhaqsiya badan in caastaan dawladii oo dhan baa meesha joogta damaanadii lagu caasiraa baa la laayahay wasiirada meesha jooga daniga telefoon ka qaban maayo waa la caasiyaa ninka damaanad qaada laga kari laayahay laba waxar ma kala goyn karaan meeshan rag baa ka baxay Aaranjaan la dhaho oo waxay arkaan afka ka garaaci jiray waxa ay marka deegaan ka dhacay dawladana u dhaxayn jiray ragii markii meesha ka baxeen kuraastoodii rag ma buuxin naga buuxiyay maanta aan laba habrood wax kala dhihi karin oo dana u shaqeeyo oo ganab u ah oo xataa aan meedka damaanad qaadi karin halka waxa ka cad marka Ciise Maxamuud markii lagu dhaho qofkaas waa Aaranjaan ogow inuu qof quality kale yahay adna wax ku soo qaadi kara naftiisa wax u qabsan kara inuu yahay kale anigu haddan umada Soomaaliyeed dhan u sheegay adeeradii Aaranjaan waa ku daydaa Aaranjaan dhalay baan ahay waan noqon doonaa waana sii ahaan doonaa hadda kadib waayo waa nimo wax kala gooyay way dhaqaale ahaan u dhisan mabda ahaan u dhisan fikir ahaan loo khaldi karin laakiin reer cawaan ay ka dhasheen aan waxba kala garanay waa kaas kuwa Aaranjaan ma ku haysi wala in shakartum bi ilaahi la azidannakum rag haysataan Umar Xamuudi Ismaan Xamuudi iyo daarado dhan iyo Soomaali kale cid haysataa ma leh laakiin Ciise Maxamuud ka caan wuxuu ku yahay qofkiisa qiimaha leh isaga dilaa waa kuwa kuraasada ku meed bi aaslay fariinteeda oo iimaanaya
odaygaas dhalay wiilka gaarsiiya waxaa la adeer ninkii wiilka lala caasi lahaa waxaan deganahay meesha la dhaho tuula jaram ilaahay waxaan deganahay meesha la dhaho yaka yaka fariintii hore oo aan diray oo nimankii reer jarfil ay kasoo jawaabeen oo ninka lala caasay wiilkoodii sidoo kale aan rabaa nin cismaan maxamuuda bahdhul baan daa weyda xataa cismaan maxamuud xataa bahdiraa lala caaso anaa ka jawaabaya hadhow anoo yacquub siyaada baa lay weydiinaya oo ka jawaabaya ma qarinayo ninkaas ha lala caaso ninkii hala doono lala caasi lahaa markaas labada nin hala wada caaso ninka cismaan maxamuud baa dilay cabdirabbi cismaan maxamuuda oo weliba bahdhul baantaa amarkaa bixiyey walaala nin la dilayna nin la diluu leeyahay puntland dowladna kama jirto nidaam kama jiro nin kastoo qorigaa qaado isdifaac nimaa shantaada kaa reebay sharci kaama reebo thuma wallahi soomaali nolosha meesha ugu hooseysay maanta shacabka reer puntland maraya warmeyd baa 12 maalin talaagada ku jira qof damaanad qaadaya lalaaya oo dhaha meydkaas aniga lagu aasaya wiilka magtiisa anaa laga rabaa dugtiisa anaa waatan qof dhaha lalaaya waxaad wasiir iyo ciidan ay tunsan waa yaabas hadda in xabadda afka ka baxda khatar ah waxaase ilaahay ka baryaa inay xabadda afka ka baxdo waxaan leeyahay wiilasha tolkaya haddii halka idiin soo dhaqaaqada halkaas salaanta ku dhufta meel kale ku dhufaneen waayo niman kibray oo kashbacay waxaa leeyahay ninka waxaa leeyahay walaasha kufsada isagoo ku yaqaana gabadha ma aadeen aduu siil kaa waayey oo cad wey waxaa dareerka lagula dhaqmayo oo lagu samaynayo oo la rabo inay weli niika ku daraan oo haldoorkooda loo caayo oo garaadkooda loo caayo oo iyagoo dhan loo maagay barnaamijkan inta kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullahi